wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha Soomaaliland ayaa si rasmi ah uga wareegtay hay'adda Fayooka Ceelbiyoodyo ay ka hirgelisay deegaanada Dharaar Waxar iyo Geediqsi oo ka tirsan degmada Dil ee gobolka Awdal taasoo ay madasha ay wasaaraddu kula wareegaysay ceelashan ay goobjoog ka ahaayeen agaasimaha waaxda biyo fidinta wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland Cabdikariin Maxamed Ducaale agaasimaha waaxda ceelasha Maxamed Maxamuud Maxamed Mooge isuduwaha wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha gobolkan Awdal Maxamed Cumar Dhimbil duqa degmada Dil iyo sidoo kale bulshooyinka kunool deegaanada Dharaar Waxar iyo Geediqsi waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay isla markaana ka waramay ceelbiyoodkan ay ka hirgeliyeen deegaanka Dharaar Waxar Abiib Jaawi oo ka socday hay'adda Fayooka taangigan aan hor joogno oo konton foosta qaada iyo ceel 2 kiiloomitir u jira magaalada tuulada Dharaar Waxar waxaanu sameynay dararkii xoolaha isla markaa waxaanu sameynay kiyosyadii ay dadku ka cabayeen ceelka waxa ku samaysan solar aan u baahnayn wax shidaal ah marka waxaanu maanta laga bilaabo si official ay ugu wareejinaynaa wasaaradda biyaha sidoo kale waxa iyaguna halkaasi hadalka iska daba qaatay duqa degmada Dil iyo sidoo kale qaar ka mid ah dadka deegaanadaasi iyagoona hay'adda Fayooka ku bogaadiyay ceelbiyoodyadani isla markaasina sheegay inay baahi weyn u qabeen inta kadib waxa isaguna halkaasi ka hadlay isuduwaha wasaaradda horumarinta biyaha ee gobolka Awdal Maxamed Cumar Dhimbil Awliyo waxana uu yiri maanta halkan waxaynu u joognaa inaynu la wareegno ceelkii Dharaar Waxar mini water system ki Dharaar Waxar loo sameeyay hay'adaha Fayooka mas'uulkii ka socday community-gani dhulkan waa dhul biyuhu ay qaali ku yihiin oo ciriiri ay ku ahaayeen aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa hay'adda iyo wasaaradduba inay nagala shaqeeyeen sida dadkani reer Dharaar Waxar sida ay biyo u heli lahaayeen sidoo kale agaasimaha waaxda biyo fidinta ee wasaaradda biyaha Soomaaliland Cabdikariin Maxamed Ducaale ayaa hay'adda Fayooka ku bogaadiyay ceelbiyoodkan sidoo kalena ugu baaqay bulshada deegaanka Dharaar Waxar inay ilaashadaan aad baan ugu mahad celinayaa hay'adda Fayooka tacabka fara badan ee ay samaysay bulshada u samaysay waxaan bulshada Dharaar Waxarna aan ku wargelinayaa in tacabka wasaaradda biyaha ay wada sameeyeen hay'adda Fayooka in bulshada halkan ay degan ay ilaashadaan way tacab fara badan baa ku baxay waxaan ku boorin lahaa inaan tacabka aan la khasaarin oo aad ku faraadeegtaan antida fiican ee la idin sameeyay ka wasaaradahaana maanta waxaan halkan u joognaa inaan kala wareegno hay'adda Fayooka si official inta kadib mas'uuliyiintani ayaa u kicitay dhanka iyo deegaanka Geediqsi isagoona halkaasi mar kale Abiib Jaawi oo ka socday hay'adda Fayooka uu ku wareejiyay ceelbiyoodka Geediqsi oo hay'adda Fayooka ka hirgelisay deegaankaasi isagoona ka waramay adeegyada kale ay ka fuliyeen deegaankani annagoo ah Fayooka waxaanu ka fulinay tuuladan sidii magaalada Dharaar Waxar oo kale ceel waana arkaysaan taangiyadiisii waxyaabo badan oo kale waan ka fulinaa laakiin imika waxa ugu muhiimsan oo aanu ku wareejinaynaa wasaaradda biyaha ceelkan aanu qodnay magaalada Geediqsi inta kadib agaasimaha waaxda biyo fidinta wasaaradda biyaha Soomaaliland Cabdikariin Maxamed Ducaale oo mar kale madashaasi ka hadlay ayaa sheegay imikana waxaanu kala wareegaynaa hay'adda Fayooka mashruucii labaad oo ah tuulada Geediqsi hay'adda Fayooka wad ku mahadsantihiin sida fiican aad uga soo jawaabteen baaqii wasaaradda horumarinta biyaha oo uu nagu hogaaminayo wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha iyo agaasimaha guud waxaanu halkan u joognaa inaanu kala wareegno mashruuca hay'adda Fayooka ay soo fulisay waana kala wareegnay Cabsalaan Saaha warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Boorama